السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو channel كنا إفراح خليف وأنا جوا إفراح خليف أصحابي ذقالقة وحني لياي سودو هذا أصحابتي هرنوري جبت وما تسنتين أصحابتي هذا بسمنا وحلياي سودو هذا هذا سبسكرايب نوصارين سبسكرايب نوصار لايك تي شير تي كومنت جنا ديرجلين أي تاي هنا هيجي إلاوين asxaabtayda saad hore ugu soo aragteen caaw wuxuu ka hadlaayo fiidiyowga saa hore u soo aragteen waxaan rabaa in aan halkaanaytii aan ugu duceeyo ama aan la qaybsado xanuunka gabdhaha ay sheego youtuberada ah oo xanuunkii corona ahaa saameeyay soo marka waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo idinkana waxaan iga rajeynayaa inay u soo duceyn doontaan insha Allah asxaabtayda hadda usii guda galo horta xanuunkan ani maalin dhaweyd waa xanuunsanaa aad ayaan u xanuunsaday muddo waxaa xanuunsanaa 10 bari gaarayso wallahi wax kasti ahna iskama aan soo qaadin oo maanta ma dhihi karo cadeen waxa uu hayaa inuu corona igu dhacay ama hargab uu ahaa isheeg ma dhihi karo soo marka wax kasti amaan soo marin laakiin wixii kooda luuliye ka dambeeyay ayaamihii ka dambeeyay aad ayaa u xanuunsaday saa u wada socoteen aan horena idinkana ugu sheegay inaan xanuunsanaa aan ila wadaagay fiidiyoyadeedii hore ama aad wajigayga ka dheehanayseen qof xanuunsan inaan ahaa horta wallaahi waxaa badanaa aan isku arkay ama ay sheego aan wajahay ila soo wajahay ayaamahaas xanuunka calaamadaha corona lagu sheegayay inaan isku arko oo calaamado badan oo dadka ay leeyihiin lafa xanuuna uu leeyahay wuxuu leeyahay madax xanuun ziyaada ah wuxuu leeyahay korka dhan oo ku wada xanuuno yaa urku ka tago marka calaamadihii lagu garanayay corona maadaama ay sheego dad badan ay ugu dhaheen calaamadahaasi tade ku hayaan corona waaye maadaama marka xanuunkaasaytii oo anigana oo aan isku arkay laakiin aanan wax kasti ah aan soo marin أنا أرتو برجع سو كرنتيلي حتى dadka guriga ila deganaa waxaan dhahay yaal ii soo dhawaaneen haliga fogaado maalmaha seeti video dhan maana soo duubeenin saa ila socoteen asxaabta wallaahi wax kale ay sheeg xanuunka seeti horta ilaahay alxamdulillah shukr bil caalamiin ilaaha marka dambe iga dulqaaday laakiin hadda maanta cadeen aan u haayo ama aan dhahayo warqadan waxa ka wataa oo cadeynayso inuu corona yahay ma jirto الحمد لله شكر بالعالمين سنجبيل واستعمالاي أما اسكو ومناي نحب سودي وحسا استعمالاي مركز دنبو اسكا عافي ماضي الحمد لله وانا عنك انا اركيسين وما تهرتين عافديو marka waxa leeyahay gabdhaha walaalahayga ah oo xanuunkaas uu ku dhacay ii sheegay wiilka oo youtuberka ah asagana oo xaaskiisa xitaa xanuunka uu ku dhacay waxaan leeyahay waxa ku dadaashaan ina isticmaashaan sanjabiisha ina is-uumisaan ina xabad soodada isticmaashaan ina kiniiniga baanadoolka ah farmashiga ka soo gadanaysiin iska joojisaan because cudurkan sida la wada sheegayo daawo ma lahan aan ka ahayn talaalka ina martid oo kaliya soo marka waxa leeyahay gabdhaha walaalahay ah ilaahay hanaga caafiyo soo marka asxaabta qaaliga ah idinkana u soo duceeyay inuu ilaahay ka dulqaado anigana waxa leeyahay ilaahay hanaga dulqaado ilaahay caafimaadna hanay siiyo oo sareeca insha Allah oo wada duceynayna kulligeena horta maalimaha ugu dambeeyay Malaysia aad ayuu cudurku ugu sii ziyaaday maalintii ugu yaraan waxa la soo saaray 12,000 ama 13,000 sida hadda maalinta shalay ugu dambeysay oo cudurka oo soo baxay warka ugu dambeeyay soo baxay uu sheegay inuu ahaa 13,000 iyo wax la jiro soo marka asxaabta qaaliga ah maanta Malaysia go'aan ay gaartay go'aankaas ay madaxda ay gaareen oo ka hadlaayo oo ahaa in cudurkii ii sheeg uu ziyaadayo oo san wax musqaan oo san jirin oo laakiin badanaa dadka laga helayo uu yahay cudurka 96% oo laga helayo uu yahay dhalinyarta in oo macnaheeya qof caafimaad qabo qof dumash imaado tastiga laga qaado qofka cudurku uu qaba laakiin just ma xanuunsano qofka xaaladaas uu ku sugan yahay ma xanuunsano soo marka 96% dadka sidaas ay u bateen oo cudurka tastiga ah laga qaadayo corona warka ugu dambeeyo maanta soo baxay wuxuu ka hadlayaa in xaaladaani Malaysia in kasto ay furnaayeen meelaha laga adeegto oo kaliya aan xitaa banaan laba qof oo isla taagan aan la arki karin halka hadda ugu dambeeyo
soo baxay warka oo ka hadlayo wuxuu yahay in ay leeyihiin ay sheegeen xaaladaha Malaysia ay ku jirto wax badan ayaa ka bedeli doona insha Allah waxaan rajaynaynaa Malaysia xaaladan adag wallahi muddo sanad ay ka badan xaalad iska adag ayaa ku jirnay haddana awal lockdown-ka uu kala ahaa lockdown oo magaalada iska furan tahay meesha doonto tagi kartid maqaaxiyada aad fadhiisan kartid oo ahaa laakiin hadda meel la fadhiisan kara ma lahan xaaladeeda aad ayay u adag tahay asxaabta qaaliga ah waxaan jeclaystay intaas inaan ila wadaago ama intaas ay timaanta soo kordhay inaan ila wadaago waxaan inaga rajaynayaa idinkana inaad usoo duceyn doontaan gabdhahaas ay xanuunsan inuu ilaahay ayagana xanuunka ka dulqaado insha Allah asxaabta qaaliga ah waxaan iga sii tagayaa waxaan leeyahay asxaabta qaaliga ah linka ugu dambeeyay warkaas ka soo baxana waxaan isoo dhigi doonaa hoos idinkana aad usoo daawan doontaan oo aad u arki doontaan intana waan isoo saari doonaa warka ugu dambeeyay insha Allah marka asxaabteeda qaaliga ah waxaan iga sii tagayaa sidaas iyo nabadgeliyo inta video waxay ku kulmeen waxaan leeyahay isma dhaafno bye bye